daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararkan ka helay dhinaca deegaanka iyo dalka. wararkan idinka hayno dhanka dibaddana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka John Kerry ayaa socdaal ku tagay magaalada Qaahira ee waddankaasi Masar. falada warkaasi iyo wariyahayaga Ikraan Maxamed inaanu talowno. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka John Kerry ayaa socdaal ku tagay magaalada Qaahira ee waddanka Masar wuxuuna la kulmay oo uu wada hadallo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Masar Sami Shukri waxayna ka wada hadleen xiriirka u dhaxeeya labada waddan iyo sidii dardar cusub loo gelin lahaa loona xoojin lahaa arrimaha dhinaca siyaasadda ee labada waddan u dhaxeeya waxayna ka wada xaajoodeen labada wasiir arrimaha la xiriira nabadgelyada iyo iskaashiga militariga ee labada waddan waxay isla soo qaadeen labada wasiir kaalmadii militariga ahayd ee hadda ka hor uu siin jiray Mareykanku dalka Masar waxa uuna wasiirku shaaca ka qaaday in Mareykanku uu siin doono dalka Masar diyaaradaha dagaalka ee F-16 iyo qalabka lagu ilaaliyo dhaqdhaqaaqa dhinaca suudimaha arrintani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii kooxaha argagixisada ay weerar ku soo oogeen lama degaanka Sanay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu maanta socdaalkiisu ku wajahan yahay magaalada Doha ee xarunta u ah waddanka Qatar wuxuuna la kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka iyo wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Khaliij waxayna ka wada hadli doonaan xaaladda nabadgelyada ee bariga dhexe